السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته khiyaarta waa idin salaamay dhammaantiin saa u dhantiin meel kastoo dunida daafeeda kala joogtaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan rajeynaya inaad caafimaad qabtaan dabcan dhageystow haddii aad horey ila joogtay waad ku mahadsantahay la joogistaada fadlan muuqaalka haddii uu kusoo gaaro like saar siina share garee commenti qurux badanna ii reeb insha allah haddii aad igu cusub tahay walaalkay ama walaashay haddii aad igu cusub tahay fadlan isku day inaad channelka subscribe saarto gambaleelka oon ka dhigato si uu kuu soo gaaro muuqaal kasta oo aan soo dhigo insha allah lana wadaag familkaaga faniskaaga insha allah waxaan rabaa inaan idinka sheekeeyo ama aan idinla wadaago qiso ku dhacday gabar Soomaaliyeed yacni way ka faalloonaysaa qisadeeda ayay rabtaa inay nala wadaagto sidee u dhacday sida tan ayay u dhacday kusoo dhawaada waxay ku bilaabanaysaa qoys Soomaaliyeed ayuu ahaay gabadha reer ayay lahayd caruuro ayay lahayd familkeeda way ku faraxsaneed boqolkiiba boqol kaliya waxay lahayd asxaab markasta waxaa u imaanaya gabdho waxay leeyihiin gurigan adi maa qabatay hooshiisa adiga maasaan yeelay marka qaar ilmaha aga tagan jirtay gabar gabdhaha ka mid ah ilmaha aga tagan jirtay magaalada markay aaday soo kaleeto ilmihiia waxay yacni ay weydiinayaan siduu yahay aabahooda iyo yacni iyo hooyada si isku yihiin oo kaleeto markasta ilmaha waxay dhahaan anaga aabaheena aaba fiican waaye hooyadeydana wuu saacideeyaa ay dhahaan ilmaha markasto gabadhii yacni ama gabdhihii waxay yacni jecleysteen inay reerkan gabadha baabiyaan ama ay burburiyaan markasta waxay leeyihiin hawshan adi maa qabatay san adi maa yeela familkaaga ma ku faraxsan tahay hadal dumar ay ula imaadeen waxay isku dayeen inay ka furaan familkeeda ama reerkeeda ay burburiyaan maalin maalmaha ka mid waxay dhaheen adiga keligaaga ma lagu abuuray inaad shaqada qabato haddii aad xanuunsan tahay iyo haddii caafimaad aad qabtabo isku day ninka waxaad dhahdaa caawi oo kaleeto maalintuu shaqada lahayn gabadhii maalin maalmaha ka mid ah waxay ku tiraahday ayadoo baqaysa oo leh lacalla hadduu kugu xanaaqa ama kugu qaylin leh waxa yacni waa ku fiirinaya oo kaleeto cudurdaar ay u samaysanaysay maalintii wiilkii wuu caawiyey hooshii wuu ka qabtay maalin labaad saasoo kaleeto maalin saddexaad saasoo kaleeto ilaa iyo heer waxay gaartay ayba safe aga dhigto oo gurigii caruurtii war aysan u haynin waxay tiraahday anigoo saas ku taagan oo reerkaygii war aan u haynin wiilkii kaliya hoosha qabanayo wax walba uu sameynayo banaan hadday tiraahdo si uu kasoo qabanayo ayaa waxaan sameeyey maalin maalmaha ka mid ah bixitaan ayaan ku darsaday dhahday asigoo idhahayo ha bixin walba haddii aad bixaysa hataa dharkan yacni iska bedel oo dhar kaloo ku munaasib ku ah xero asoo ileh aan warkiisa intaan diiday waxay tiraahday albaabka aan ka baxay waa baxay tiraahday waxaan aaday magaalada sidii caadada ii ahayd waxaan ku darsaday dhahday wareeg anigoo awalba guriga waxay dhahday aan war u haynay caruurtii waxay dhahday waan baxay xilli dambaan soo hoyday adiga leyd oo kaleetaan imaaday dhahday gurigiyaan gargaraacaa wax iga furo malahay dhahday albaabkiyaan ku laabtaa maatran waan gargaraacaa wax iga furaaya malahan waan xanaaqay dhahday teleefonkii aan wacay waan ka wacay igama qabanayo message-aan u qoraa igama qabanayo aniga isla garlay dhahday weli waan xanaaqsanahay oo waxa aan sameeyey maba arkayibo dariskii ayaa kusoo kacay dhahday shanqarteydii way ii imaadeen waxay ugu dhaheen hiblaayo ninkaagii caruurta anagoo noo keenay asagana wuu iska baxay waxay dhahday markiisas lay dhahay aadaan u naxay dhahday waayo waxa aan fidinayay iyo waxa uu sameeyey isma lahay dhahday aad iyo aadaan uga naxay waagiyaa baryay caruurtii iska soo waday dhahday waagiyaa baryay waan wacaa igama qabanayo waxaan isku dayay tiraahday inaan raali geliyo oo yacni message aan u diro oo qoraallo waa iima soo jawaabayo waan wacaa igama qabanayo wuu baxay markuu waagu u baryay wuxuu u tagay dhahday aabahayga markuu u tagay wuxuu ku dhahay aabow anigii gabadhaada way noo soo kala dhamaatay oo yacni calafkeena intaan ku ekaay bisay iga tahay warqadeedana waa tanaa oo yacni waan furay markuu saas dhahay aniga ma ogeeni dhahday telefonaa la ii soo diray yacni wuxuu igu dhahay walaalay adiga way noo kala dhamaatay warqadaadana aabahaagaan kugu dhiibay yacni xaggayga waxaa ka tahay furiin oo waan ku furay caruurteydana haddii aad ku qanacsan tahay hayso haddii kalena anigaa wadanayo
waxay tiraahday waan isku naxay waxaan sameeyaan garan waaye aad iyo aadaan u murugo waxay dhahday si kasta Daniel waxay dhahday dalqadihii waa dhacay waxaan sameeyay aqoon waaye wiig kadib ama bil kadib saan jeclahay waxay tiraahday saaxiibteydii gabdhihii ii imaan jiray mid ka mid ah waxay igu tiraahday oo siiba ilmaha u dhiiban jiray waxay igu dhahday aroosaan waa lii aroosi rabaa ee arooskayga kasoo qayb gal infiitadii lii keenay infiitadii markaa arkay magaciisa iyo sawirkiisaan arkay waan naxay tiraahday waxaan sameeyaa garan waaye maanaan aadin waayo waxay dhahday awooddii aan ku aadi lahay ma lahayn oo qalbigayga ii diidaya tiraahday waayo wuxuu ahay ninkaygii hore i fure waan murgoy dhahday wiig kadib adiga ama 2 wiig kadib waxay dhahday waxaan aaday gurigay xilligii uu bixi jiray waxay dhahday ninka waa aqaanaa subaxii shaqada markuu aaday intuu ka baxay waxay dhahday waan sugay markuu baxay aan gabadhii u galay guri mindha markaan galayba waxay tiraahday gurigii oo wada nadiif ah wax walbo sidii loogu talagalay u kala socdaan ugu tagay dhahday markaas waxaan ku dhahay heblaayo gurigan adiga maa nadiifiye ama adiga maa yacni saan u qabsaday mise ninkaaga ku caawiyey markaas waxay igu tiraahday abaayo shaqada waa la kala leeyahay asaga banaanka ayuu iiga soo shaqeeyaa anigana guriga ayaan leeyahay dhahday shaqadiisa inaan kalifana ma rabo waayo asagoo daalan ayuu imaanaa subaxiina asigoo wuxuu baxayaa siduu noogu soo shaqeyn lahay ka fikiraayo ayuu baxayaa ay tiraahday marka ma rabo inaan saaro culays fara badan waxay iisii raacisay waxay igu tiraahday nimcoo ilaahay ku tusay ama waad hanan weysay nimcooyinku ilaahay ku tusay laakiin aniga waxaa ilaahay ka baryaya tiraahday inuu i tuso nimcada adiga aad arki weysay oo ilaahay ii barakeeyo aan rajeynaya tiraahday weli waxay usii raacisay waxay dhahday caruurtaada markaa ii keen jirtay ayaa waxaan weydiin jiray dhahday siduu u dhaqmo ninkaaga ama aabahooda mar walba way ii faalin jireen dhahday way ii ammaani jireen oo waxay dhihi jireen aabaheena aaba fiican waaye aabaheena aaba saan waaye dhaqankiisana waxay tiraahday waan ka arka waayo gurigan waxay dhahday kula joogi jiray wuxuu yahayna waan ogahay tiraahday mana rabay tiraahday inaan dhibo ama aan kurbeeyo nimcooyinku ilaahay ku tusi waayna aniga ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu i tuso marka waxaan meeshaas ka arkaynaa ama aan yacni nooga soo baxayo in la aamini karin naag ama sheeko dumar wixii fikir ah ama dhiirigelin ah ama yacni aad gabadhaas aad ku waaninaysaan ama aad yacni ugu duceynaysaan ama commentiga aad ugu reebeysiin waa dhankiina waxaan rajeynayaa inaad fikirro qurux badan ugu reebi doontaan inuu ilaahay iyadana niyaddeeda u dejiyo tanna waxay u noqotay cashar inay yacni ka qoys qaadato oo dambe aysan u laabanin ayaan rajeynaynaa insha allah waxaan idin rajeynayaa khayr fara badan biidnillaah muuqaalkan haddii uu kusoo gaarana like-ta saar siina sheer gare lana wadaag familkaaga iyo faniskaaga waxaan rajeynayaa kulan dambe oo xiise leh insha allah tan iyo kulanto dambe wabilaahi tawfiiq